السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطعنهني لما قعبحي هليدا أرك إسرائيل قيبتي سي لباد. waxaa la qaaday tilaabooyinkii loo baahnaa kadib markii la gaaray maalintii la ballamay ayaa 13 xubnood aaday ninkii Ingiriiska ahaa ee xukumayay qaybta Ingiriiska si ay u gudbiyaan codsigii. xubnaha qaar ayaa rajeynayay in firadu guul ku dhamaato halka qaarna ay filanayeen in aysan guul ku dhamaanin. waxayna la kulmeen ninkii Ingiriiska ahaa waxayna u gudbiyeen codsigii ay wadeen. wuxuu yiri waxaad tihiin qabaa'ilo kala duwan waxaana adag inaad fikir isku waafaqdaan. waxaana idin arkaa inaad tihiin durwaa iyo ari beer ku jira seebay ku suuroobaysaa in aad golo ku kulantaan idinkoo aanay iskhilaafayn. waa wax aan la fiiranayn. waxay ku dhaheen waxaan u qaadanaynaa hadalkaaga cashar. durwaayadu waan rabaayadaynaynaa waxaan ka dhigaynaa in ay ariga isla noolaadaan iyaga oo aanay iscunayn. wax fogna ma ahan inaad aragtid maalin anagoo golo ku midaysan khilaafna uusan naga dhaxaynin. arintaas khilaafkaana waxa uu abuuray gumaysigii Talyaaniga ahaa. wuxuu yiri waa waxa dhacay in aad wax isku waafaqdaan waana wax aad ku dheer in ay sax noqdaan waxa aad sheegaysaan. laakiin waxaan idinkaga digayaa inaad siyaasadda faraha la gashaan. jawaabtana waxaad heli doontaa isbuuca dhamaadkii. waxa soo maray maalmo ay laabtood ciriiri gashay. waxa ku dheeraaday maalmihii loo qabtay waxayna galab kasta aadaan xeebta iyaga oo ku fikraya arrimaha xaaladda mustaqbalka. maalin Isniin ah ayay xubnuhu warqad guduudan ka heleen ninkii Ingiriiska qaybta u xukumayay. waxaan ku qornaa dawladda Ingiriiska ee militariga ah weli waxay ku jirtaa dagaal. qofna uma ogolaanayso inay faraha la soo galaan arrimaha siyaasadda ilaa ay ka baxdo dagaalka socda. sidaas oo ay tahayna waxay idin ogolaatay inaad furtaan gole aad ku kulantaan qabsataan danihiina. maalmo yar kadib 15 May waxaa lagu dhawaaqay golihii la magac baxay Golaha Dhalinyarada Soomaaliyeed. wuxuuna noqday wax jira isaga oo leh ujeedooyin cad oo kala ah kow in la tuuro qabyaaladda kala soocida diimaha ama dariiqda iyo la dagaalanka kala goynta dadka hab qabiil. lambar 2 in aan la ogolaan in uu ka mid noqdo golaha nin da'diisu ka weyn tahay 45 sano si uusan ugu dhex darin fikradaha gumaysiga ama mid ay ka yar tahay da'diisu 15 sano kaasna xilligii caruurnimada ayuu ku jiraa. lambar 3 in aan la ogolaanin in uu soo galo golaha qof aanay xubin ka ahayn. lambar 4 dhammaan xubnaha ka qayb galaya waa walaalo weyn iskaalmaysaan. way socdeen waxayna hore u qaadeen tilaabooyinkii aan wax loo dhigi jirin. waxaana ka qayb qaatay in badan oo dhalinyarada ka mid ah. hogaamiyayaashii xubnaha way dadaaleen sidii ay guusha u hogaamin lahaayeen iyada oo ay haysato cadaadis caburin aamusin iyo inaysan muujin karin hawshooda sidii looga bartay gumaysiga. wuxuu baaritaan ku sameyn jiray dhammaan warqadaha ay qoraan iyo kuwa loo soo diro. maalmaha ka mid ah bay heleen warqad ku socota golaha qoran aysan fahmayn. waxayna ku sameeyeen baaritaan dheer kadib nin ka mid ah kormeerayaashii ayaa weydiiyay xubnaha golaha in ay og yihiin warqadan. way garteen waxayna fasireen waxayna u sheegeen in ay iyaga u socotay. waxayna ku qorneed af Soomaali oo ah kii la isticmaali jiray xilligii Cusmaaniyiinta. waxaa shakiyay dawladda Ingiriiska waxayna tiri kuwan waxay wadaan waa wax weyn. waxayna bilaabeen inay dabagal ku sameeyaan dhalinyarada habeen iyo maalin. waxaana bilowday warar suuq soo gaaraya golaha in booliisku raadinayo xubnaha golaha dhalinyarada lana qaban doono. madaxdu waxay ahaayeen
wuxuu u shaqeeyay sidii ay u fulin lahaayeen mabaa'ida ay aaminsan yihiin una qaadi lahaayeen tilaawooyinka lagama maarmaanka ah waxaana tagay sanado yar arintii weli ma istaagin golihii wuxuu isu bedelay xisbi siyaasi ah muuqaalkiisuna yahay mid ummadeed xoojinaya mabaa'ibdiisa balaarinaya shaqooyinkiisa xarumihiisa xiriir uu la leeyahay bulshooyinka waxaana ka dhisay laamihiisa dhammaan qaybaha wadanka oo dhan waxaana ku biiray rag aqoon-yahaniin ah iyo shaqaalihii dawladda sidoo kale waxaa ku biiray ciidamada iyo booliska iyagoo ujeedadoodu tahay difaacidda iyo ilaalinta xaqa muwaadiniinta danaha wadanka iyo ka hortagida gumaysiga iyada oo la adeegsanayo dareen wadaniyadeed lana raadinayo xornimo goluhu wuxuu matalay dhaqdhaqaaqii wadaniga isaga oo kor u qaaday hamigii ku toosnaa shacabka hurdadii iyo fadhigii uu ku abuuray gumaysiga wassalaamu calaykum intaan qayb kale aan ku kulmi doono subscribe saar laagtana taabanaysiina sheer garee